waxaan halkan ku fahmaynaa sida MSN-kii hore dadka kugu jiray aad ugu soo wareegsan lahayd MSN cusub haddii aad furatid ama hotmail cusub. waxaad furtaa emailka ay kugu jiraan emailadii hore, yacni contactskaagii hore, dadkii emailadooda aad taqaanay dhammaantood meel ay ku xariisan yihiin. si hal mar aad ugu soo wareejisid MSN-ka cusub dadkan oo kale, waxaan u baahanahay inaan save gareeyo. marka hore waxaad tagtaa contacts oo halkan ku taala sida idin muuqata. waxaad kasii aadaa qaybta u hooseysa save instant messaging contacts. qaybta u hooseysa aad u eg waa save instant messaging contacts. meeshaas markaad taabatid waxaad ka xoranaysaa boxka soo baxaya desktop, daaqadan baa soo baxaysa ama meel aad garanaysid hadhow. contactskayga halkan baa lagu xareynayaa. marka waxaan leenahay save. boxkii wuxuu ku weydiinayaa isagoo ku dhahaya contactskaagii baa la save gareeyey, waxaad taabataa okay. haddaba MSN-ka cusub iyo MSN-kii horeba 8.1 iyo 14. waa isku nuuc, waa iskaga mid dhanka save gareynta MSN-ka. haddaba boxkan kore haddaadan haysanin menugan, qaybtan kale ayaad ka helisi kartaa iyadoo aad ka raacaysa contacts, qaybta hoose u deg save instant messaging contacts. sidaas ayay ku save gareyn kartaa. aan aadno emailka cusub ee aan faaruq ah, aan kan ka baxno marka hore, kadibna aan ku darno emailadeena. fur emailka faaruqa ah adoo ku galaya ciwaankaaga sidii caadigahay. markuu soo baxana meeshii aan ka dhahaynay save waxaad ka xoranaysaa import. halkan waxaad leedahay meeshii isla halkii ayaad tegaysaa contacts. emailkan waa kan faaruqa ah ayaan dadka ayna igu jirin, yacni contactska. waxaan ka xolanaynaa contacts. haddana isla qaybtii hore ee save instantiga hoosteeda eeg waxaa ku qoran import instant messaging contacts. waxaa soo baxaya isla boxkii, laakiin ma ahan togtan save, waa open, yacni soo qaad emailadeyda. halkan waxaa yaala contacts for emailkayga. markaan xulano hal mar dhagsii, kadibna open ku dheh daaqadan markaad joogtid. waxaa halkan lagaa weydiinayaa inaad tiradan emailada aad ku darsan doontid emailkaaga. waxaad leedahay yes. halkanna okay baa ka leedahay. waxaa halkan aad ka arkaysaa emailadaadii oo si toosa ugu darsamay MSN-ka, oo weliba MSN-kii cusbaa. waxaan halkan ku fahmaynaa sida ugu fudud ee aad ku darsan kartid emailadaada adoo kasoo raraya emailkaagii hore kuna shubaya emailkaaga cusub.